madaxweynaha dalka Marakanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu Marakanka ka mamnuucayo abka TikTok oo muuqaalada lagu baahiyo waxa uu wariyayaasha u sheegay inuu saxeexayo amar sare oo khadka looga saari doono saraakiisha amniga ee Marakanka ayaa ka cabsi qaba in abkan oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo ByteDance oo loo isticmaali karo in lagu ururiyo macluumaadka gaarka ah ee dadka reer Maraykan TikTok ayaa gaashaanka u daruurtay eedeymaha ah in dawladda Shiinaha ay maamusho amaba ay la wadaagto macluumaad la xiriira dadka Maraykanka abkani oo uu isticmaalkiisu xawaare sare ku socdo ayaa waxa isticmaala dad lagu qiyaaso 80 milyan oo reer Maraykan waxa ay mamnuucidda TikTok sameyn weyn ku yeelan doontaa shirkadda ByteDance yeeshee macadda xilliga la dhaqan gelin doono mamnuucidda TikTok iyo caqabadaha sharciga soo wajihi karo maamulka Trump waxaa jiray warar sheegaya in shirkadda Microsoft ay doonaysay inay TikTok ka iibsato shirkadda ByteDance balse Trump ayaa u muuqda in shaki gelinayo in heshiiska noocaasi ah uu dhaco afhayeen u hadlay TikTok ayaa gaashaanka ku dhuftay in uu ka jawaabo mamnuucidda Trump ee abka laakiinse waxa uu warbaahinta u sheegay in shirkadda ay ku kalsoon tahay horena ugu kalsoonayd inay ka gungaari doonto hadafkoodii ahaa inay Maraykanka ka helaan macaamiil badan talaabadan lagu mamnuucayo abka TikTok ayaa imanaya xilli uu sii adkaanayo xiriirka u dhaxeeya maamulka Trump iyo dawladda Shiinaha iyaga oo isku haya qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin khilaafka dhanka ganacsiga iyo dilaacidda fayraska corona وعبد الحميد محمد تلفزيونka caalamiga iyo Gobanimo